muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa waxaa soconayay shirar caalami ah oo ka dhacaya gudaha dalka Soomaaliya iyo dibaddiisa kuwaasi oo looga hadlayay mustaqbalka dalka Soomaaliya xilli ay muuqanayso ifafaala nabadeed oo muujinaysa in dalka uu cagihiisa dib isu taago shirarkaasi waxaa ugu dambeeyay shirkii ka dhacay magaalada London 23 Febraayo shirkii dastuurka ee Garowe iyo shirkii qorshaha nabadda ee magaalada Muqdisho haddaba dadweynaha Soomaaliyeed ku dhaqan gudaha dalka iyo dibaddiisa ayaa ka bixiyay aragtiyo isku dhow waa kuwan qaar ka mid ah dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Denmark bismillaahir rahmaanir rahiim su'aashay gabadheeda ay su'aashay aad baan aniga Soomaaliya rajo uga qabaa hadda in xaalka Soomaaliya wax weyn isbedeleen baan u jeedaa shirki ka dhacay UK ka dhacay oo dawladda Ingiriiska ay hormoodeysay ama ay hormoodka ka ahayd inay tahay guul Soomaaliya u soo hoyatay waxaan u jeedaa inay tahay soo jeedin caalamka loo soo jeedinay xaalka Soomaaliya oo 12 sano jirsaday inay ahayd in wax wanaagsan ay shirkaasi shir wanaagsan buu ahaa shir caalamka oo dhan runtii muddo la sugayo oo laga shaqeeyo ahaa guul Soomaaliya u soo hoyato go'aankana shacabka Soomaalida iska leh waxaan fikirinaa gacmo furan wixii aliya awadiyada waa la garab taaganahay dawladda Soomaaliya ka dhalata waa dawlad Soomaalida oo dhan matalaysa dawladda ku meel gaarka waxa weeye dawlad ku meel gaara process bi wadi doonta processkaas wuxuu yahay in mataqaana wixii aliya wixii raba maartay Soomaaliya wanaageeda inay ka shaqeyso inay soo sharaxdo hadhow toolana Soomaalida markii si dimuqraadiya doortaan madaxweynahoogii in madaxweynahaasi 5 sano oo Soomaalida matalayo marka hadii Soomaalidu madaxweyne doorato madaxweynaha waxa weeye in mataqaanaa la taageero iyaad waajib Soomaalida oo dhan ku ah shirarkaas oo dhan oo la sameeyo waa wax muhiim ah loo baahnaa Garowe la tagay oo la shiray shirkaas waa shir muhiim ah waxaa u maleynaa midka haddana ay iskugu yimideen London ay ku kala qaateen yaala haddana heshiis fiican waa wax aad ugu bagnay runtii waa maskaxdeena qaboojiye dadkii wax garad ahna ka fahmay inuu shirkaas oo shir oo aad u fiican oo ahay waxba dib uma dhigan nabadda laga wada shaqeeyo nin walba nabadda ka shaqeeyo nabaddaas iyo midnimadaas u baan anfaa wax kale fahma adduunka oo dhan anagu noo soo wada socdaa oo martiin noo soo yahay laakiin aas qurxin waan rabnaa wadankeena inuu nabad noo noqdo oon ku wada noqono annaga dhan iyo caruurteena iyo eheladeena oo kala meel kala jirno isku imaano hal meel sidoo Ilaahay raali ka dhigo waana taageereynaa waana taageeri doonaa waana taageersanaa tan hadda joogtana waxaan rajaynayaa inta u dhiman shacabka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba miyi iyo magaalaba in ay gacan qabtaan dawladooda marka la gaaro bisha Agoosto ee sanadkan ayaa la filayaa in ay hirgalaan dhammaan himilooyinka shirarka Soomaalida xilligaasi oo ku beegan marka la filayo in dalka ay ka hana qaado dawlad cusub oo xafiisadeeda kala wareegi doonta dawladda hadda oo waqtigeedu xilligaasi ku eg yahay Sahra Maxamuud Cali TV-ga qaranka Soomaaliyeed Denmark